جنرال xogaha media waa janal u taagan taariikhda iyo inuu kaaga sheegayo wax walba oo maskaxda ku dhisi karo barashada taariikhda waa nolol dhameystiran fadlan subscribe saar oo ku taxnow janalka xogaha media una sii sheegare asxaabtaada nin oday ah baa waxa uu ka sheegay sababta uu ugu halqabsado markasta adduun waa loo dadbadsadaa waxa uu sheegay in sanadii 1980 isaga oo jooga magaalada Qaahira ee dalka Masar oo ay hal qol ku wada degan yihiin afar wiil bishuna ay dabayaaq tahay oo aysan jirin ijaar guriga aysan haysan illeen ma shaqaystaan cid dibadda wax uga soo dirtana aysan jirin oo uu walaac xoogan haysto oo ku saabsan sidii wax la yeeli lahaa ayaa wiilashii mid kamid ah goor subax ah ayuu waxa uu aaday garoonka diyaaradaha ee magaalada Qaahira oo ay maalintaas imaanaysay diyaaradda Somali Airlines si uu dadka ugu horeysa xaaladda dalka ka jirta wiilkii ayaa eelboorka kula kulmay gabar Soomaali ah oo meel ay aado iyo cid ay ka taqaan Qaahira aysan jirin wiilkii baa gabadhii soo kaxeeyay oo saddexdii wiil oo guriga jooga u keenay wiilashii baa aad ugu farxay iyagoo u mooday gabadhan in ay wiilka ku ehel tahay ayna dibadda ka timid kana bixin doonto ijaarka guriga gabadhii bay qolka uga soo baxeen waxay kadib gabadhii baa qubays gashay intii ay qubaysanaysay bay wiilkii weydiiyeen qofkii noo kala kicin lahayd miya sidee wax u jiraan gabadhu maxay ku tahay wiilkii baa ku yiri gabadhan waa gabar Soomaaliyeed oo aan maanta ay laboorka kula kulmay oo meel ay aado iyo cid ay garanaysa meesha ma jirto gabar walaasheen ah oo dayacan meel ugu matay karo buu ku yiri wiilashii mid kamid ah baa ku yiri ma ogtahay in gurigan ay 10 cisho kaliya nooga dhiman tahay xageen geyn doontaa marka wiilkii baa yiri gabadhan dhib ma arkayso oo Soomaali kale oo naga dhaqaale fiican baan u geynayaa inta ka horeysa waxaan qabnaa weena la qabtaa habeenkii markii ay wada casheeyeen bay seexdeen wixii markii la soo toosay ayuu wiilkii gabadhii wareysay xaaladda iyo sida ay Qaahira ku timid gabadhii baa u sheegtay wiilka in ay laboorka Roma laga soo celiyay oo Talyaaniga u socotay halkaas oo ku sugayay walaalkeed oo degan magaalada Torino sababta loo soo celiyayna ay ahayd iyadoo wadan lacagta baasaboorka ugu qoran oo dhameyd $2,000 gabadhii ayaa wiilkii weydiisay in uu ka caawiyo in taleefan u dirto walaalkeed oo Itaaliya jooga kadibna boosaha ay isu raaceen gabadhii baa walaalkeed la hadashay walaalkeed waxa uu ahaa iska dhal Soomaali iyo Talyaani oo isu hooyo bay ahaayeen weligoodna isma arag wiilkii Talyaaniga ahaa ayaa gabadhii ku yiri aniga ayaa Qaahira kugu imaanayo 7 maalmood kadib waana ku soo kaxeynaya wiilkii ayay isbuuc kadib ay laboor ka doonay markii uu soo degay ayuu wiilkii walaashiis xabad qabtay isagoo ilmo ka socdo oo Talyaani ku dhahayo hooyo ayaa igala ka dardaarantay inta aan dunidan joogo inaadan dhitoonin kadib ay soo raaceen oo waxay yimaadeen xaafadii wiilasha wiilkii Talyaaniga ahaa ayaa walaashiis wareysay xiriirka ka dhaxeeya iyada iyo wiilashan isagoo u mooday in ay qaraabo yihiin markaas bay ku tiri wiilashan anigoo Qaahira ee laboorka meel aan ka aad garan la bay iga soo kaxeeyeen oo waxaan Soomaalinimo ka ahayn nagama dhaxayso alle ka siro way badbaadiyeen wiilkii baa gabadhii walaashiisa ku yiri abaal bay nagu leeyihiin maxaan u sameynaa markaas bay tiri guriga ay degan yihiin ijaarkiisa ma haystaan bishana waxa ka dhiman 4 maalmood oo kaliya culayska baa saaran wiilkii Talyaaniga ahaa baa ilmo ka soo daadatay isagoo la yaaban dadka iyagaba dhib ku jiro oo haddana u gargaaraya gabar aysan aqoon markaas buu yiri ijaarka meeqee waayo waxa loo sheegay in ay kirada tahay $150 bishii markaas buu walaashiis u yiri u sheeg wiilasha waxba iyaysan walwalin aniga ayaa sanad shubaayo kirada guriga marka sidaas ayaan ugu halqabsadaa adduun waa loo dadbadsadaa dhacdadan waxa ay rahansiin kartaa in ummadda Soomaaliyeed ay yihiin dad walaalo ah oo isjecel oo iscaawiya isuna gacan furan oo isu gurmada